السلام عليكم رمضان مبارك ii ogolaaw inaan kuu sheego dhowr qodob oo aad u muhiim ah xilliga afurka marka aadaanku dhaco oo aad u diyaar garowdo inaad qaadato raashinkaaga ugu horeeyay ee aad ku afbilaaban lahayd fadlan raashinkaagu yuusan noqonin cuntada dufanka leh sida sambuuska macsharta iyo burka saliidda leh taas bedelkeedu ha ahaado timir tira isdheera iyo galaas biyo shimbirisa ama biyaha tubada ee caadiga ah ulajeedada aad timirta u isticmaalaysid waa timirtu waxa ay leedahay ama ka buuxa maadada lagu magacaabo potassiumka maadadaas oo xadeysa carqalada ka dhici karta calool maanta oo idil baahneed iyo raashinka aad isticmaali doontid inta kadib isbar carabkaaga iyo tirada isdheer ee timirta ah sidoo kale cab biyaha shimbiriska ah ee aad diyaarsatay waan ogahay in aysan kugu filayn galaaska biyaha ah ee aad diyaarsatay laakiin sug waad cabi doontaa markaad intaas samaysid kadib soo tuko ama howlahaaga yar ee ku dhiman soo qabso dhowr daqiiqo kadib aan isu soo noqono isku soo noqod wanaagsan markaan waxaan soo diyaarsanay raashinkii aan ugu talagalnay inaan ku afurno oo dhameystiran fadlan ugu horeyn raashinkeenu yuusan noqonin raashinka lagu magacaabo carbohydrate-ka ee sida degdega ah ay u shiidi karto caloosheennu sida bariiska baastada iyo kuwa la midka ah ee aadka u jilcan sidoo kalena cabitaankeenu yuusan noqonin cabitaanka gasacadeysan ama aashitada leh taas bedelkeedu raashinkeenu ha ahaado raashinka lagu magacaabo whole grain-ka ee qolofta leh sida digirta salbukada qamadiga iyo kuwa la midka ah si aad uga gaashaamato laabjeex iyo gaaska noocyadiisa kala duwan sidoo kalena ha hilmaamin ama ha ka tagin inay qayb ka noqoto qudaarta noocyadeeda kala duwan raashinkaas aan ugu talagalnay inaan ku afurno sida qaraha tufaaxa saytuunka iyo nooc waliba oo aad heli kartid sidoo kale cabitaankeenu ha ahaado mid laga shiiday qudaartaas aan haysano sidoo kale waxaa aad u muhiim ah in aadan raashinkaasi si saa'id ah ama aadan u cunin oo aad qayb yar ka isticmaasho inta ku hartana aad isticmaasho xilliga cashada Ramadaan mubaarak